Assalaamu calaykum soo dhawaada saaxiibayaal maanta waxaa idin wada anamigii noo socday qeybtiisii labaad haddaadan soo daawan qeybtii koowaad or soo daawo qeybteenii labaad waxay ku bilaabanaysaa shaqaalihii hoteelka ayaa weydiiyey ma garanaysaa cunto karyo cusub oo halkan ku isticmaali karno Tuyo ayaa dhool cadeeyey haa waan garanayaa mid la yiraahdo jalaato taleefankiisii ayuu la soo baxay waxa uu siiyey aqabkii kuna caawiyey inuu sameeyo jalaato dhadhanku wuxuu ahaa mid cajiib dadkii oo dhan baa yaabay waa maxay qalabkaas yaabka leh ee gacantaada ku jiro ayay dhaheen waa qalab sihir ah oo aan isticmaalo Tuyo ayaa ku jawaabay qof kale ma fahmi karo markii ay sahamiyeen magaalada Tuyo iyo walaashiisa waxay ogaadeen inay ku qasbanaadeen inay warqad muhiim ah u gudbiyaan caasimadda boqortooyada laakiin inta aanay dhaqdhaqaaqin waxay ku turunturoodeen buug ka dhacay suuga gabar ku labisan dharka Jabaan ayaa waxaa hareereeyay tuugo waxay isku dayday inay la dagaalanto laakiin way daciiftay gaajo darteeda nin tuug ah ayaa seeftiisii la dhahay Tuyo ayaa si degdeg ah u isticmaalay sihirka ciidda bacadkii ayaa indhaha kaga hiray tuuggii ilaa iyo taana waxay ku biireen inay jebiyaan tuugtii inteedii kale dabadeed Tuyo waxa uu soo ururiyey gabdhihii si degdeg ah ayuu meesha uga saaray marka ay soo gaareen wadada dhinaca inantii ayaa ugu mahadcelisay sida ay u garab istaageen waxayna ku tiri magacaygu waa Yaaya waxaan ka imid magaalo la yiraahdo Cashin Tuyo ayaa yaabay magaca magaaladaas wuxuu u egaa magaalo Jabaan oo ka timid adduunkiisa xitaa dharkeedu waxay u ekaayeen lebiska dhaqanka Jabaan isla markiiba waxaa soo baxday dhawaaq caloosheeda waxay garteen inay gaajo hayso way ka heesteen kadibna si yaab leh ayay cuntadii u cuntay kadib waxay u sheegtay inay ku wajahan tahay caasimadda boqortooyada waxay u soo jeediyeen inay si wadajir ah u safraan maadaama ay halkaas u socdeen Yaaya aad bay u farxday markiiba way aqbashay socdaalkii caasimadda boqortooyada ayaa bilaabmay wadada Tuyo wuxuu ku bartay buug ay ka buuxaan siro oo isku dayi karo hal sir ayaa soo jiitay wuxuu isku dayay seeftii Yaaya laakiin waxba ma dhihin ilaa ayaa qososhay seeftu aad bay u culus tahay isku day wax ka fudud marka ku tuuro sirka timaha Yaaya timaheedii gacantiisii ayay soo galeen gabadhii baa canaanatay ha ku dhiiranin inaad sihirkan u isticmaasho inaad dadka alaabtoodii haddo Tuyo gacmihiisii ayuu kor u qaaday weligay ma samayn doono wax sidaas oo kale ah Yaaya ayaa weydiiyay hadday sidaas tahay si naxariis leh ugu soo celi timahayga Tuyo wuxuu ku dhaqmi jiray sihir kale oo badan waxaa ka mid ahaa mid u oggolaanayo inuu dareemo ur fara badan markiibuu madaxa kor u qaaday sankiisii waxa uu uriyey dhiig si degdeg ah ayuu ishii ugu taageen oo waxay heleen koox baal ah oo u eg quraacada oo uu hogaaminayo nin dahsoon oo weerar ku qaadayo dadka safarka ah dagaal ayaa qarxay ilaa sihirka dabka ayay ku dagaalantay Yaaya si geesinimo leh ayay seefteedii ugu dagaalantay laakiin way turunturootay oo dhulka ku dhacday bahal ayaa ku soo booday isagoo diyaar u ah inuu garaaco Tuyo si degdeg ah ayuu u tuuray sihirkiisii bahalkii jeeda ayaa ka luntay Yaaya intay agaheeda ku istaagtay ayay u imaaday waxay u maleeyeen in dagaalku dhammaaday laakiin waxaa soo muuqday wuxuush aad iyo aad u badan Tuyo indhihiisii iriiri ayay galeen ninkii dahsoonaa ayaa ugu yeeray sihir kale wax yar kadib ilaalada boqortooyada ayaa yimid iyagoo ugu mahadceliyey gargaarkoodii dabadeed waxaa yimid cod jilicsan oo ooyayo gudaha gaariga intay u yaaceen ayay heleen nin falaar ku taagan tahay gabar yar ayaa agtiisa ka ooyday ninkii ayaa gacanta si daciifa u qabtay waqtigaygii uu dhammaaday waan dhiman doonaa fadlan is ogow laakiin Tuyo hore ayuu u soo dhaqaaqay falaarihii ayuu qabsaday dabadeed si ayuu gacantiisii ka sii daayay wadnihii ku jiray ninkii ayaa milmay wuu raacay sihirka bogsiinayo ninkii intuu neef qaaday ayuu si toosan u fadhiistay isagoo nool gabartii wejigeedii farxad baa ka muuqday aad iyo aad ayay ugu mahadcelisay ninkii ayaa isbaray magacaygu waa Ram anigu waxaan ahay madaxa bakhaarka ee guriga Tugo Alfare gabadhan waa Sushi gabadhii Tugo Tuyo naxdin darteeda ayuu barafoobay ilaa ayaa si hoose ugu tiri Tugo Alfare waa boqorka walaalkii taas micnaheedu waxay ka dhasheen boqortooyada waxay dhaheen waan u socnaa caasimadda boqortooyada
fadlan raac oo nagu ilaaliya jidka ayay ku heshiiyeen. Markii ay ugu dambeyntii yimaadeen caasimadda oo ay galeen guriga, Duque Alvarez laftiisii ayaa u soo yaacay inantiisii oo isku duubay, oo wejigiisii nafis baa ka muuqday. Mahadsanid Duque, ayuu si adag u yidhi, waxaad badbaadisay iyada. Duque ayaa madax ruuxay, waxaan sameeyey waa wax sax ah oo keliya. Kadibna Duque wuu casuumay Duque, waxa uu yidhi, waxaan leenahay cudur badan oo ka dhashay, waxay rabaan inay waxyeeleeyaan iyaga oo garaacaya gabadheeda. Isla markii Sushi ayaa soo gashay, aabaheedii ayaa si tartiib ah u weydiiyey, hooyadaaday ma salaantay? Haa, ay xanuunsatay, waan hubsaday iyada. Xaaskaygii way xanuunsan tahay, waxay lumisay araggeedii, wax walba waan isku daynay, xitaa sihirka ayaa bogsiin waayay. Laakiin Sushi ayaa madaxa hoos u dhigtay, haddii aan heli lahayn lacag fara badan ayaan siin lahayn. Hablihii walaalaha ahaa ayaa is eegay, kadibna waxay farta ku fiiqeen Duque waa uu samayn karaa. Si wadajir ah waxay galeen qolka boqoradda. Duque ayaa gacantiisii fidiyay, isagoo hindhaheedii ku dul tuuray sihirka bogsiinaya. Dadkii oo dhan aamus bay ku sugnaayeen. Markaas ayay hindhaheedii kala furmeen, araggeedii ayaa soo noqday. Intay ku dhegtay ninkeedii iyo naanteedii ayaa ilmo ka soo daatay.